si gaar ah waxaa ogtii maalmahan oo madaxweynaha iyadoo gabagaba siiyahay in ummadda Soomaaliyeed dhibaato badan dawladda xaggeeda ay kala kulmayaan oo ugu horeyso dad ayagoo xalay nabad ku seexday saakay iyadoo cagaf ku taagan tahay arkaya xoolaha sidaas loo boobayo ashbah ma takuun waxay ugu dhowdahay oo egtaa waxa weeye wuxuu guluulka la dhihi jiray waaya guluulkana nabi sallallahu alayhi wasallam sidii laga wariyay xadiidka Bukhari Muslim bay soo saareen xadiis Abi Hurayra waxa nabi leeyahay sallallahu alayhi wasallam yaan midkiin la ulfiyanna ahadakum yawm alqiyamah midkiin yaana arkin qiyaamaha asaga oo qoorta ku wata rati ama awr maaragtay ololaya asoo garabka ku wata oo guluul oo qaatay dartiis u wata guluulka iyo xoolaha dadka oo la boobo waxay kamid tahay asbaabta naarta kamid tahay sida xadiidkaasna uu sheegayo xadiidkii kale oo kirkira oo ninkii nabiga sallallahu alayhi wasallam kamid ahaa khadamadiisa iyo dadka nabiga u shaqeynayay oo ku naar mutayna ay kamid tahay sida darteed waxa culimada loogu wacay kamid tahay inay la wadaagaan madaxda arrimahaas culayska badan leh xadiidkii kale oo Bukhari uu soo saaro taqaaniin nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa laga wariyay in nabiga uu yiri ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة مجرى قف إلهي أو ضد مدح وقدقه دينتا أسقى أمدي سقياني إلا إلهي تبارك وتعالى جنة وكحران تنمي أرمهاس أرمها كلاته علماء أي مركز تبع أهل ويهين أي يعني لوجوع أهل علمي إني مدح الجارسيان سيد أكتين أولو الأمر وأهل علمي يا مدح واي إلهي سيدوا بأوير أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مركز أولي الأمر كوكيهين أهل الحل والعقد أهل الريان dadkii gacanta qabalaha weeye si aan bari la isu eedin hadii mushkilo kala dalkan ay ka dhacdo sidaas ayaa loogu wacay oo culimada loogu yeeray si ay madaxda nusxigoodii waajibkooda uga gutaan